أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saaxiibayaal walaalkiin Aadam Nuur Xasan waxaad ku soo dhawaateen kanaalkana muuqaal production insha Allah maanta barnaamijkeena diyaaleen waxaan rabaa inaan kula wadaago shirkadaha sameeya website-yada waxaan kula wadaagi doonaa markaa shirkad ka mid ah aad ku samaysan kartid website aanan kaaga baahnayn waqti aad u fara badan marka waxaad ku samayn kartaa ugu yaraan 10 daqiiqo ayaad ku samayn kartaa laakiin website-kaada ugu horeeya 10 daqiiqo kuma samayn kartidoo waqti ayuu kaa qaadanayaa marka shirkadan waxaad ka samaysan doontaa insha Allah aan kugu bari doona muuqaalkan website free ayaad ka samaysan kartaa website-ka insha Allah marka aad u baahan tahay oo kale marka dadka way kala duwan yihiin qof wuxuu u baahan yahay website oo education online inuu sameeyo sidoo kale qof wuxuu u baahan yahay e-commerce mid ganacsi inuu sameeyo website mid wuxuu u baahan yahay mid SEO qaas ah oo portfolio inuu samaysto marka dadka way kala duwan yihiin marka shirkadda aan rabo inaan kula wadaago website nooc kasta aad ka samaysan kartaa inta hadda aan ku tusi doono insha Allah marka aniga hadda midka aan rabo inaan kula wadaago mid ka duwan ayaad samayn kartaa ha isdhihin midkaan kula wadaagayo ayaa lagu sameeyaa marka insha Allah waxaan kula wadaagi doonaa website-ka aan ka sameeyay shirkaddan iyo sida loo sameeyo insha Allah waxaan ka sameeyay shirkaddan website-kan aad u jeedin hadda website-kan waa live waa website education ah pageskiisa iyo wixiisa dhan way u dhameystiran yihiin waayo plus waad u jeedinayaan filaya oo website waxbarasho ah marka hal color aan isticmaal muhiim ma ahan colorkan adigana inaad isticmaashid wax ka duwan ayaad samayn kartaa marka website-ka gebi ahaan mid ka duwan ayaad samayn kartaa marka qaabka uu shaqeeyo toolishiisa iyo sida loo isticmaalo shirkaddan toolisheeda ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah waxaan rajaynaa marka dhammaantiin inaad ka wada heli doontiin insha Allah marka ugu horeyn intaynu gudgalin barnaamijkan waxaynu u baahannahay laba qodob inaynu fahanno qodobka ugu horeeya wuxuu yahay domain name qodobka labaadna wuxuu yahay hosting domain name-ka maxaa loola jeedaa domain name-ka waxa waaye IP address-ka website-ka waaye ama si kale haddii aan u dhigo waxaad leedahay ganacsi ayaad leedahay ganacsigaaga magac gooni ayuu leeyahay oo dadka ay u yaqaanaan marka isla magacaas ayaad waxaad u samayn kartaa marka website-kaada u samayn kartaa waan rajaynaa inaad wada fahmaysiin domain name-ka sidoo kale hosting-ka muxuu yahay waxaynu ognahay marka website-yada qaab live ay u shaqeeyaan marka waxaad u baahan tahay marka xogta website-kaada si live ah meeshaad ugu keedsan lahayd ayaa loo yaqaanaa marka hosting-ka website-ka mar walba oo lasoo booqdo qaab live uu ku shaqeeya marka waxaad u baahan tahay hosting ayaad u baahan tahay shirkado waxaa jira marka hosting-ka bixiya qaab live ah oo datadaada aadan ka weyneynin oo si live u shaqeeya marka waan rajaynaa marka hosting-ka inaad fahmayso hosting-ka waxa waaye xogta website-kaaga meeshii lagu keedin lahaa qaab online ahaan ah domain-kana waxa waaye IP address-ka website-kaaga ama magaca website-kaada uu khaaska waaye sidoo kale barnaamijka muuqaalka waxaan kusoo gabagabeyn doonaa insha Allah website-ka hadda aan rabo inaan kula wadaago ama shirkadda aad ka samaysanaysid website-ka oo free-ga tala ayaan ku siin doonaa insha Allah oo muuqaalka gabagabadiisa ayaan kugu siin doonaa haddaba aynu gudgalno waxaad u baahan tahay browser-kaaga ayaad u baahan tahay waxaad soo furtaa marka si aad u booqatid shirkaddan aad ka samaysan kartid website-ka browser-kaaga Chrome-ka ama waxaad isticmaashid ayaad soo furanaysaa marka waxaad raadinaysaa marka website-kan lagu magacaabo Render Forest ayaad raadinaysaa website-kan waxaan soo dhigi doonaa marka linkigiisa qaybta hoose ee video-ga description-ka haddii aadan description-ka aadan aqoon comment ugu horeyn kugu bin gareyn doonaa insha Allah website-ka markaad soo booqatid ugu horeyn marka waxaad u baahan tahay inaad ka samaysatid account marka account-nada lagu xiri karo website-kan Render Forest waxay noqon karaan kan Facebook-gaaga ama Gmail ayaad ku xiran kartaa marka almost marka qaybtan sign up ayuu ku soo qaban doonaa waxaad samaynaysaa marka sign up Gmail-kaada ayaad ku xiran doontaa insha Allah waa muhiim sababtoo ah Gmail-kaaga hadhow hadda marka Gmail-kan aad wada fiirsin oo kale meesha waxaa ku qoran my website hadhow waxa waaye wixii aad u baahan tahay website-kaaga waad update gareyn kartaa marka haddaadan account ka samaysan account ka samayso Gmail-kaaga ku xiro sidoo kale marka sharxaad yar aan ka bixiyo website-kan lagu magacaabo Render Forest website-ka marka howlaha ama shaqooyinka uu qabanayo way badan yihiin oo website ay laguma sameeyo meesha markaad fiirisin oo kale waxaad samaysan kartaa logooyin aad samaysan kartaa sidoo kale animation video aad samaysan kartaa oo cartoon ah sidoo kale waxaad edit gareyn kartaa wax lagu magacaabo edit mockups-ka waxaa yara fahmaya dadka dhanka designerska ay yara fahmaya marka sidoo kale build website ayaad ku dhisi kartaa isla shirkaddan Render Forest sidoo kale waxaad ku design gareyn kartaa wax loo yaqaano xayeysiimaha dhanka design-ka
marka howlahan dhan ayuu ku qabanaya website le laguma dhiso shirkadan Render Forest intaan dhan waad ku samaysan kartaa marka anaga ujeedadeena waxay tahay inaynu ku dhisno website shirkadan lagu magacaabo Render Forest marka shirkadda macaamiisheeda hadda oo ugu caansan waxaa ka mid ah sida BBC da oo kale sida hadda meesha ku qoran sidoo kale Cambridge University sidoo kale Sony Music marka dad ama shirkada caan ah ayaa isticmaala website-kan wax aniga iska leeyahay ma ahan oo meeshay ku qoran yihiin marka waxaan u baahanahay marka si aan website-keena u dhisno qaybtan waxaan ku dhufanayaa build website ayaan ku dhufanayaa qaybtan sare marka midna ogsoonow haddii aadan computer aadan haysan teleefonkaaga xitaa ku tijaabi oo ku dhisi kartaa sababtoo ah website un application lama soo degayno website-kan gudihiisa ayaan ku dhisi doonaa insha Allah shirkadan Render Forest isla website-keena marka teleefonkaadana waad ku samayn kartaa almost kadib markaa soo dooratid build my website qaybta hoose u soo soco waxyaabahan akhri marka insha Allah wax badan ayaad ka fahmi doontaa qaybtan marka waxaad ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay build my website aad ku dhufanaysaa si aad u dhistid website-kaaga marka optionka build my website markaad soo dooratid wuxuu kuu soo saari doonaa laba option ayuu kuu soo saari doonaa optionkan ay ku qoran tahay create from scratch iyo sidoo kale start with template muxuu yahay marka create from scratch af Soomaali ahaan waxaan dhihi karaa tusaale ahaan guri si loo dhiso ma koraa laga soo bilaabo mise hoosaa laga bilaaba jingada ma laga bilaabo mise qaybta hoose root-ka laga soo bilaabo guriga jawaabtaada waxaa waaye guriga qaybta hoose laga soo bilaabo marka website-kaaga haddii aad u baahan tahay qaybta hoose inaad kasoo bilaawdid waxaad dooranaysaa marka create from scratch marka intaasna umala jeedo sababtoo coding ayuu u baahan yahay website-kaas anaga hadda coding wax ma isticmaalayno drag and drop templates aynu isticmaali doonaa marka labada option ba templates ay ku shaqeeyaan laakiin kan waxaa waaye design-kaaga qaabku noqon lahaa adiga ayaa samaysanaya kanna wuu diyaarsan yahay oo design-ka wuu diyaarsan yahay wax ayaad ka bedelaysaa sida footer-ka oo header-ka oo kale qaabkaad u baahan tahay oo kale footer-ka waxyaabaha contents-ka marka labadoodaba waa un iska drag and drop laakiin scratch waxaa waaye mid walba design-ka qaabku noqon lahaa meesha aad ka dooranaysaa marka labada option ba waynu ku shaqeyn doonaa insha Allah balse hadda waxaan ku dhufanayaa qaybta ay ku qoran tahay start with template marka optionka templateska markaynu soo doorno qaybtan templateska oo kale waxyaabaha templateska diyaarsan haddii aad u baahan tahay mid marketing website ah mid oo haddii aad u baahan tahay cuntooyin waxyaaba haddii aad u baahan tahay inaad aad ku iibisid ama waxyaabo oo travel education health sports mid fashion haddii aad u baahan tahay portfolio mid aroosyo waxyaabaha inta aad ka dooran doontaa almuhim midkaad u baahan tahay aniga aadan ahaan hadda waxaan u baahanahay qaybtan education ayaan u baahanahay qaybta educationka ayaan dooranayaa marka almuhim waxaa waaye qaabku uu noqon lahaa website-kaaga ama midkaad u baahan tahay waa inaad doorataa kadib kuwa badan ayuu ii keenay hadda almost intaan uu ii keenay marka midkan ay ku qoran tahay learn English online marka templateska intaadan dooran aadan ku shaqeyn preview aad ku samayn kartaa marka midkan aan u baahanahay hadda waxaan ku dhufanayaa qaybta preview ayaan ku dhufanayaa marka hadda templateska aynu soo dooranay qaabkan ayuu egyahay header-ka oo kale qaybta sare waa sidaan wax badan aynu ka bedeli karnaa oo qaybta scratch-kana waynu ku samayn karnaa waa website-ka hadda templateska aynu soo dooranay website waxbarasho waaye marka sidaan ayuu u yara egyahay sidoo kale shirkadan Render Forest-ga waxay ku siinayaan view-ga dadka soo booqanaya website-kaaga haddii computer ay isticmaalayaan oo kale haddii dadka tablet ay isticmaalayaan marka view-gan waa muhiim website markaad dhisaysid inaad meelo badan aad ka fiirisid oo kale ayadana waa muhiim hadda dadka tablet-ka oo kale sidaan ayuu ugu soo muuqanayaa website-ka markay soo booqdaan templates-kan aan hadda inta ku haysano sidoo kale telefonaadka caadiga oo yaryarka oo kale dadka kasoo booqanaya ayagana inta aad ka fiirinaysaa sidaan ayuu u ekaanaya marka view-ga mar walba wuu kala duwanaanayaa laakiin almost hadda templates-kan aad u qurux badan yahay really marka view-ga oo kale markaa ku qanacdid templateska qaybtan waxaad ku dhufanaysaa marka apply aad ku dhufanaysaa si aan waxyaabo badan aynu ugu bedelno templateska qaybtan waxaan ka dooranaya marka apply ayaan ka dooranayaa apply markaan dhaha marka waxaa la isoo gudbiyey qaybta dashboard-ka templateska ee la isoo gudbiyey ama website-ka aan dhaho shay walba meesha saaran waxaan awood u leeyahay inaan bedesho almost waxaan ka bilaabay marka qaybtan header-ka ayaan ka bilaabay marka kan kuma qanacsani qaybtan waxaan ka dooranaya marka waxaan dib ugu laabanaya marka qaybtii scratch-ka aan dib ugu laabanaya header-kan oo kale hadda kuma qanacsani qaybtan waxaan dooranaya marka replace ayaan dooranaya
replace waxa waaye headerkan oo kale hadda uma baahniyo scratchka ayuu scratchkan dib ugu noqonaynaa header aan ku qanacsanahay ayaan dooranayaa marka midkaad u baahantahay aad dooranaysa almost ani hadda midkaan ayaan dooranayaa replace ayaan leeyahay headerka haddaay waxyaabo ayuu watay shapes hadda waad u jeedin ayaan filaa midkaan ayaan replace ku sameeyay almost marka qaybtan ayaanu ka bilaabi doonaa looga ayaan soo gelinaya marka waxyaabahaada soo diyaarsa insha allah folder kusoo diyaarso wax walba soo gelinaysidna intaan option ayaa lagu soo saari doonaa haddii computerka ay kugu jiraan uploadka stock imageka waxaa waaye isla shirkadda render forest haddii aad wax u baahan tahay image inaad kasoo degsatid marka intaan oo idilba haddii aad internetka si toos aad ugu baahan tahay almost markaan upload ayaan u baahanahay qaybtan waxaan ka dooranaya upload ayaan ka dooranaya computerka gudihiisa ayuu ugu jiraa sawirkaan u baahanaya inaan meesha ku bedelo marka loogadeeda meeshan ay ii saaran tahay loogadeeda ayaan soo dooranayaa ayadoo png ah marka waa muhiim inay png ay ku tahay loogadaada sababtoo qaybtan sare ayaan u isticmaalayna marka qaybtan ay ku qoran tahay learn english online waxaan ku bedelayaa waayo plus ayaan leeyahay almost qaybtan hoosena marka qoraalida waan boobsin doonaa insha allah waqtiga inuu nagu dheeraado ma rabo qoraalida ayaan diyaarsan doonaa insha allah sidoo kale marka waxaan u baahan nahay inaynu iska bedelno sawirkan gabadha meeshan saaran qaybtan waxaynu ku haysanaa oo sare gallery aynu ku haysanaa galleryga ayaan soo furayaa sidoo kale waxaan ka dooranayaa upload ayaan ka dooranayaa waxaan meeshan kasoo diyaarsanayaa marka sawir aan hore aan usoo diyaarsaday ayaan soo gashanayaa marka waxyaabahan oo idil waad bedeli kartaa hadda qoraalkan oo kale waad ujeedin ayaan filaya hadda qaybtan waxaan ku bedelay koorsooyinka hadda diyaarka ah sidoo kale background ayaan u samayn karaa isla meeshan waxaynu ku haysanaa background caddaan waaye haddii aan ka dhigo bluega oo kale waad ujeedin ayaan filaya isla saddexdan kalar ayuu ku siinayaa shirkaddan wonder forest sidoo kale haddii aad u baahan tahay qaybta gadaale isla sawir haddii aad u baahan tahay inaad ka dhigtidna waad ka dhigi kartaa isla sawirkanba aan soo doorto kadibna kalarkan ayaan u sameynay waad ujeedin ayaan filaya qaybta hoose waxaan u sameynay isla background oo sawir gooni aynu soo gashanay oo isla sawirkaas sare oo kale aynu soo gashanay qaybta hoosena wuu ku jiraa marka coloriska intaan ayuu ku siinaya sidoo kale waxaad samayn kartaa marka qaybta hoosena gudahana waa soo gelin kartaa waxa loo yaqaano sawirna sidoo kale waxaad samayn kartaa website-ka haddii pageskan oo kale page walba replace waad ku samayn kartaa tusaale hadda pagekan oo kale markaan replace haddii aan ku dhufto qaybtii oo waxaa la soo saaray scratchka oo kale page nooc kale ay kusoo baxaya page kale haddii aad u baahan tahayna qaybtan ayaad plus ka samayn kartaa labadan page inta u dhaxayso haddii aad u baahan tahay tusaale ahaan pagekan aboutiga oo ay ku qoran tahay about us-ka meeshan aan ku bedelo labadan page waxaan u baahanahay inaan kala hormariyo colorkan aan ka bedelo qaybtan backgroundka ayaad ka maamuli kartaa waxaad samayn kartaa marka labadan page hadda waad iska hormari kartaa nagu saabsan ayaan kor soo marsiinayaa qaybtan calaamada ku haystaa marka up and down upka haddii aan click ku siiyo kor ayuu soo marayaa waad ujeedin ayaan filaya headerkii waxaa isku soo dhegay nagu saabsan haddii aan qaybta hoose click aan usoo siiyano nagu saabsan hoos ayuu soo maray koorsooyinka hadda diyaarka ahna waxay imaadeen qaybta sare meeshan waxaa wax walbaad iska bedeli kartaa koorsooyinka hadda diyaarka Soomaali oo kale hadda inta markaan dhaho xisaab marka wax walba ku saabsan sidaan ayaad u bedeli kartaa muhiimadu waxay tahay inaad shay walba aad bedeli kartid qaybtan dashboardka sawiraantan oo kale qaabkee loo bedeli karaa hadda oo teacherska macallimiinta ku saabsan oo kale sawirka qaybtan galleryga aad click ku siinaysaa kadib waad soo dooranaysaa sawirka aad u baahan tahay upload qaybta gudaha computerka haddii uu kugu jiro kadib wuxuu sameynayaa xoogaa loading ayuu sameynaya kadib wuu soo gelin doonaa insha allah sidan ayuu kusoo qaban doonaa marka recommendation ahaan waxay ku siinayaan size ayuu ku siinayaan haddii aad u baahan tahay waad soo zoom garayn kartaa marka waxaan kugula talinayaa marka recommendationka ay ku siinayaan inaad raacdid mar walba rotation ayaad ku samayn kartaa sawirkaaga sidoo kale haddii aad sidaan aad ugu qanacsan tahayna apply ayaad leedahay waad ujeedin ayaan filaya sawirkii hadda sidaan aan inta ku bedelnay magaca macalinkaasna hadda waxaynu ku samayn karnaa magacayga ayaan ku qoray aadam nuur ayaan leeyahay english teacherkana waxaanu ka dhigi karnaa graphic designer oo kale
oo ujeedin ayaan filaya aboutigiis waxyaabaha ku saabsan oo kale waan u bedeli karnaa. aynu u imaano marka waxyaabaha ugu muhiimsan colorskan hore aan ugu soo hadlay buluugan ba aan ka dhigo. sidoo kale marka waxyaabahan dhan waad bedeli kartaa almost marka waxaa muhiimsan marka ani qaabka loo sameynayo inaan ku tuso kadibna wax ka duwan inaad samaysan kartid. sawir walba meeshan saaran waad bedeli kartaa midkan oo kale bal asigana aan bedelno. sawirkan ayaan soo gelinaya asigana kadib waxaan leeyahay qaybta apply ayaan ku dhufanayaa. waad ujeedin ayaan filaya asigana sidaan ayaan u bedelnay. sidoo kale qaybta gadaale colorka waynu bedeli karnaa. haddaadan u baahnayn marka isla pageka aad taagan tahay oo kale waad iska delete gareyn kartaa. qaybtan waxaad ku haysataa delete ayaad ku haysataa waad iska delete gareyn kartaa. waxyaabaha undo iyo redo intaad ku haysataa wixii qalad aad samaysidna waad soo celin kartaa. almost marka pagekii hadda sawiraantii sidaan aynu ku deletenay waadna soo celin kartaa haddii aad u baahan tahay. qaybta marka tusaale ahaan hadda looga inta saaran loogadan waynu iska bedeli karnaa. qaybta waxaan ku dhufanaya marka isla galleryga ayaan ku dhufanayaa kadib upload ayaan leeyahay. sidoo kale loogadeeda ayaan soo dooranayaa. waad ujeedin ayaan filaya copyrightka websiteka intuu shaqeynayo oo kale waxaan leeyahay 2019 ilaa iyo 2021. sidee marka u bedeli karnaa sidoo kale waxyaabaha social media meeshan saaran. social media waad bedeli kartaa sida youtube-ka oo kale click markii lagu siiyo isla youtube-ka shirkadaas inuu noo soo gudbiyo ayaan u baahanahay. isla iconka youtube-ka aad imaanaysa meeshan waxaad ku haysataa marka qaybta linkiga aad ku haysataa calaamadan kadib calaamadan aad ku dhufanaysaa youtube-kaaga ayaad soo qaadanaysaa. marka bal youtube aan soo qaado waxaynu u baahanahay marka inaynu soo qaadno linkiga kadib meesha aynu ku apply gareyno. marka meeshan waxaynu ku haysanaa linki aynu ku haysanaa linkiga ayaan soo koobiyanaya qaybtan sare url-ka kadib websiteka aan usoo laabanaya inta ayaan ku baasti gareynayaa. safe ayaan leeyahay. marka haddii qaybtan youtube-ka click lagu siiyo wuxuu soo gudbinayaa qaybta youtube-ka uu soo gudbinayaa. waan rajaynaya inaad intaas fahanto. tusaale midkaadan u baahnayn waad iska delete kartaa. delete ayaad leedahay. instagramka oo kale delete. sidoo kale linkiga facebook waad ku samaysan kartaa asigana. waan rajaynaya marka dhammaantiin inaad wada fahanteen qaabka loogu sameynayo shirkadan render forest website loogu sameynayo. marka meeshan waxaynu ku haysanaa marka qoraal gooni haddii aad u baahan tahay fartiisa iyo waxyaabahaas inaad ku shaqaysid oo kale meeshan fonts ku yaal. meeshan waxaa waaye styleka waaye. stylekan wuxuu la socdaa marka tusaale ahaan meeshan hadda waxaynu ku haysanaa icon ay ku qoran tahay len. bal aynu u bedelno lenkan waxaynu leenahay courses ayanu leenahay meeshan courseska safe ayanu leenahay. marka tusaale ahaan shapekan oo kale wareegan haddaadan ku qanacsanayn qaybtan styleka imow kadib isla wareegan oo kale sidaan aynu ka dhigi karnaa. waad ujeedin ayaan filayaa sidoo kale rectangle oo kale aynu ka dhigi karnaa. marka oval shape haddii wareeg noocan aad u baahan tahay. marka qaybtan bottomiska iyo sidoo kale elementiska iyo waxyaabaha styleka aad haysatid ayaad ku bedeli kartaa qaybtan styleka. qaybtan colorska markaad dhimaatid waxaa waaye waxyaabaha colorska ku saabsan website-kaaga waaye. dadka designerska aad u fahmaya web designerska qaybta colorska oo kale marka tijaabi websiteska markaa sameynayso oo kale really kan ugu hore haddaan aqoon u lahayn waa la iskaga baashaalaa. haddii aad markii kugu horeysay aad tahay aad sameynaysid wax badan aad ka faa'iidi doontaa insha Allah. marka kuba baro beri ka maalina marka website-da oo haddii aad u baahan tahay marka website caalami inaad samaysid wax badan aad marka aqoon u leedahay. marka qaybtan colors aad inta ku haysataa ku diyaarsan. qaybtan pageska markaynu imaano hadda pageska meeshan saaran waxaa waaye homeka about your teacher course contact waaye. mid kale haddii aad u baahan tahay aad linki aad ku dhufan kartaa ama intii aad ka samayn kartaa. marka pagekan hadda aynu joogno hadda tusaalehaan qaybtan markaan ku dhufto oo kale courseska page kale waaye. asigana wuxuu u baahan yahay marka inaad maamushid ayuu u baahan yahay. qaybta hadda courseska pageka course ayaan soo furay. meesha waxaa saaran logo isla loogada inaad iska bedeshid colorska aad ku qanacsan tahay inaad ku samaysatid waxyaabahan oo idil hal inaad iskaga bedeshid. meeshan waxaa saaran marka youtube links ayaa saaran. linkisna waad kusoo dari kartaa. qaybtan waxaad ku dhufanaysaa marka isla iconka videoga aad ku dhufanaysaa kadib from url-ka waxaa waaye youtube-ka oo kale haddii aad u baahan tahay muuqaal ku jiro inaad meeshan website-kaada aad kusoo dartid waad kusoo dari kartaa. asigana hal ayaad iskaga bedeli kartaa waxyaabahan oo idilba ayagana. marka waan rajaynaa marka guud ahaan inaad si fiican aad u wada fahanteen shirkadda lagu magacaabo wonder forest qaabka website loogu samaysanayo. marka
website-kaaga markaad dhammaysid oo kale waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay publish. intaadan publish ku dhufan marka waxaad samaysaa qaybtan waxaad ku dhufataa marka preview aad ku dhufanaysaa. previewga mar walba qaabka viewga computerka iyo sidoo kale telefonaadka iyo wuxuu ku siinayaa qaybtan ayuu ku siinayaa tabletka. mar walba inaad fiirisid qaabka uu ekaanayo website-kaaga waa muhiim. waad ujeedin ayaan filayaa sawirkan haddaynu soo bedelnay meeshaan waxaan kusoo qornay magaca macalinka Adam Nur graphic designer oo benefit waxaan gebigooda aad iska bedeli kartaa. waxaa muhiimsan marka website noocan leh kuma samayn kartid shirkadan Wonder Forest. website nooc kasta aad ku samayn kartaa. marka website-kaaga viewgiisa marka ku qanacdid oo kale qaybtan waxaan ku dhufanayaa marka back to editing aan ku dhufanayaa waxaan u laabanayaa qaybta dashboardka aan u laabanayaa. marka website-kaaga wax walba markaad ku qanacdid qaabku u samaysan yahay waxaad ku dhufanaysaa marka qaybtan publish aad ku dhufanaysaa. marka publish markaad ku dhufatid saddexdan option ayaa ku soo bixi doona. optionka ugu horeeya waxa waaye forever free waaye oo plan free waaye. sidoo kale premium waaye website-kan aad u jeedin qaybtan labaad. kanna sidoo kale waa lacag isigana. marka forever free oo kale waxyaabaha ku raacaya maxay tahay? waxa ku raacayo sida domain name-ka oo kale. domain name-ka waxa waaye ganacsigaaga magaciisa oo kale website-kaaga ku sameysay. marka hadhow wuxuu qaadanayaa marka magaca website-ka aad u bixisay oo kale hadda waayo plus ayaan soo sameynay .renderforest.com ayuu noqonayaa marka website-kaaga ilaan wixii waa free. marka ayaga waxyaabaha ay ku siinayaan qaybtan free oo kale domain name-kaaga intaasaa raacay subdomain name-kaas ayuu noqonayaa. sidoo kale website-kaaga wuxuu qaadan doonaa wax loo yaqaano render forest branding ayuu qaadan doonaa. sababta waxaa la ogaanayaa si free ah oo qaybtan blanka markaad ku publish garaysid website-kaaga inaad ku samaysid shirkadan lagu magacaabo render forest. marka haddii aad ku qanacsan tahay ayadana waad ku samaysan kartaa blankan render forest. sidoo kale waxay ku siinayaan 300 MB oo storage ay ku siinayaan blankan free-ga. marka sidoo kale qaybtan markaynu fiirino optionkan labaad oo premium-ka bishii waxa waaye lacag dhan $6 ah. marka optionskan ay ku siinayaan sida domain ku gooni ay ku siinayaan reference-gooda kuma raaci doono. waxay ku siinayaan 5 GB oo storage ay ku siinayaan. waa fast and reliable hosting waaye la isku aamini karo sida aanu soo aragnayba waxaa isticmaala shirkada caalamiga sida BBC oo kale Cambridge University oo kale waxyaabo badan dad badan ay isticmaalo. sidoo kale waxaad ka helaysaa wax loo yaqaan CEO Google Analytics ah email form ama subscription aad ka heli doontaa. Soomaaliya haddii aad joogto xitaa waad iibsan kartaa sababtoo haddii aad haysatid oo kale kaararka online-ka visa master waxyaabahaas haddii aad haysatid xitaa waad iibsan kartaa ganacsi aad leedahay. almost kanna asigana waa un optionadan ayaad fiirin doontaa. marka saaxiibayaal gabagabada muuqaalka inaynu joognaa. muuqaalka markaan soo bilaabay waxaan idin dhahay muuqaalka gabagabadiisa waxaan siin doonaa talo. taladayda waxay tahay shirkadan render forest-ga hadda markaynu fiirino website-ka waad ku dhisan kartaa qaab free ah. laakiin gabagabada markaad imaatid oo kale waa inay ku sameeyaan ayaga hosting-ka waa inay ku siiyaan wax loo yaqaano domain-ka. ayaga u jujuuban tahay macnaha hadalkayga haddaad fahmaysid. sababta open source-ga hadda markii laga hadlayo tusaale ahaan wordpress oo kale wordpress oo open source website-kaada waad ku design garaysan kartaa waad ku samaysan kartaa. ciddii aad u baahan tahay aad hosting ka raadsan kartaa iyo sidoo kale domain. beri ka maalin qofkaas haddii aad isfahmi weysiin oo hosting-ka kuu sameynayo website-kaada waad ka furi kartaa oo website domain iyo sidoo kale hosting kale ayaad ku xiran kartaa. marka hadda shirkadan Wonder Forest oo kale haddii aad isfahmi weysiin si toos ah ugu tagay oo design-kii iyo website-kaada waxyaabaha dhan intaad ugu tagay. intaasna waan rajaynayaa inaad wada fahmaysiin. marka si free ah horta adduunkanba wax si bilaash iskaga mid jiraan. wax qofka hadduu bilaash kugu sii xitaa wax un ayuu ka raadinaya. hadda shirkadan waa Wonder Forest-gan oo kale website-ka qaab dhismeedkiisa oo kale adiga ayaa soo dhisanaya. waa wax iska fudud waaye. haddii website-ka ugu horeeyo hal saac uu kugu qaato dhisidiisa midka labaad 10 daqiiqo 20 daqiiqo ayuu kugu qaadanayaa. kadibna website-ka markaa publish aad rabtay inaad ku samaysid oo kale option-kan free-ga waxyaabo badan ayaa ku raaci doona. asxaabtaadu waxay ogaan doonaan render forest inaad kusoo samaysid oo kale qaybta hoose oo kale footer-ka oo kale qaybta hoose loogadooda ay imaan doonto. subdomain-kiin ayaga subdomain ayuu noqon doonaa website-kaagana. magac hebel ma noqon doono. hebel waxaa ka dambeyn doono wax loo yaqaano render forest site-kan ayaa ka dambeyn doona .com-kan.
marka haddii aan kusoo koobo taladeeda waxay tahay haddii aad u baahan tahay waad iibsan kartaa qaybtan premiumka oo wax walba waad iibsan kartaa laakiin waxaad ogsoonaataa beri ka maalin haddii aad u baahan tahay inaad iska furtid oo kale aadan ku qanacsanayn waxyaabaha hostingka iyo sidoo kale domainka websitekaada dhan inaad ka tegi doontid oo aadan ku xiran karin wax kale sababtoo open source si toos ah ma ahan waan rajaynaa dhammaantiin inaad wada fahanteen muuqaalkeena maanta shirkaddan Wonder Forest qaabka website loogu sameysanayo marka qaybtan waxaan ku dhufanayaa hadda free blank ayaan publish ayaan ku sameynayaa website-ka waxaynu arki doonaa insha Allah qaabka haddana website-kaaga beri ka maalin haddii aad u baahan tahay update qaabka loogu sameynayo waxaan ku dhufanayaa marka publish-kan ayaan ku dhufanayaa marka website-kaaga publish markaad kusoo sameysid aniga hadda qaab free ayaan publish ah ugu soo sameeyay marka website-kaaga waxaad ka raadin doontaa qaybta dashboard-ka qaybta account-kaaga ayaad soo furaysaa account-kaaga ayaad soo furaysaa meesha marka waxyaabaha website-kan uu sameynayo oo idil ayaad ka helaysaa haddii aad domain ka iibsatay oo kale inta ayuu kuusoo gelayaa logooyin haddii aad samaysay almuhim waxaa waaye anaga hadda waxaynu sameynay website qaybta marka my website ayuu kuusoo geli doonaa website-kaaga kadib qaybtan projectiga ayaa lagu soo gudbin doonaa kadib meeshan website-ka ayay soo hoosgeli doonaan waxyaabaha aad samaysay oo kale kadib hadda loudin ayuu sameynayaa cloudka qaybta hostingkooda ayuu u gudbinayaa website-keena bal aynu wada aragno wuxuu noo soo saaray insha Allah hadda successfully ayuu leeyahay hadda howsha wuu inoo dhameeyay marka almost hadda website-kaana sidaan ayuu live ku yahay URL-ka waad u jeedin ayaan filayaa qaybtan hadda marka edit aan ku dhufto si toos ah website-ka waxaan u sameyn karaa waad edit gareyn karaa haddii domain gooni aan u baahanahayna isla hadda waan ku xiri karaa edit hadda markaynu ku dhufano isla waxaynu kusoo laabanaynaa dashboard-ka website-ka aynu kusoo laabanaynaa haddana waxaynu awood u leenahay inaynu wax ka bedelno website-keena waad u jeedin ayaan filayaa marka almost saaxiibayaal qaabkan ayaa loo isticmaalaa shirkaddan lagu magacaabo Wonder Forest sidaana ayaa website loogu samaystaa haddii aad markaa ku cusub tahay kanalkeena muuqaal production fadlan waxaynu ka codsanaynaa kanalkeena subscribe aad ku samaysid sidoo kale muuqaalka hadda aad daawanaysa inaad like aad saartid qaybta hoosan ra'yigaada nagu la wadaago walaalkiin Aadam Nuur Xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh